السلام عليكم سود وصاحبة قيمة بدن ku xiran kanaalka baxnaanshe darwalnimadu waxa laga yaabaa in dadka qaar ula muuqato wax iska caadi ah inta badan aan sameeyno adna wax dhibaato kala kulmin laakiin waxa jira darawliin meesha ugu sareysa ka gaaray darwalnimada una jeclaaday sida xirfado kale maanta waxa idin la wadaagi doonaa darwalo aad la yaabi doonto dhabahan waxay sameeyaan darwalkan Aasiyaanka ee lagu magacaabo Lu waxa uu sameeyaa challenge khatar ah waxaana baabuurka ku wadayaa laba xarig korkooda oo dhulka u jira 15 mitir ayadoo ay jirin wax ilaalinaya dhabahan way u suurta gashay waxaana ku qaadatay 30 daqiiqo muuqaalkan waxa aragnaa labadan darawal oo soo bandhigay xirfadooda darawalnimo ee baabuurta tartanka ee saddexda ee taagan dhexdooda ugu dambeyn waxay baakinka ku galeen si cajiib ah oo xirfad ay ku dhahan tahay darawalkan waxa uu awood u leeyahay inuu ku wado laba lugood baabuurka halkii caadiyan afar lugood lagu wado waxaana caan ka tahay dalka Sacuudiga waditaanka baabuurka in lagu wado laba lugood waxay markii ugu horeysay ka soo muuqatay dalka Denmark sanadkii 1960kii kadibna waxa bilaabatay in loo adeegsado filmaanta action-ka laakiin Sacuudiyaanka waxay sameeyeen si xad dhaaf ah oo u gaara ayna u soo bandhigaan sida inay madaxa kala baxaan iyo taayirada ka bedelaan ayadoo baabuurku socdo mid ka mid ah challenge-yada naadirka ee lagu sameeyay Arizona sanadkii 1999kii koox dhalinyaro ayaa waxay go'aansadeen inay ka soo boodaan diyaarad ayagoo ku jira gaari waxayna xirnaayeen boolshoodyo wax yar kadib baabuurka ay saarneeyeen ay waxay uga faniineen mid laakiin nasiib xumo mid ka mid ah kuwii saarnaa ayaa waxa ku dhacay qayb ka mid ah gaariga taasoo sababtay inuu miir daboolo laakiin nasiib wanaag waxa uu furtay boolshoodka waxaana u suurta gashay inuu badbaado waxay kula muuqataa darawalkan inuu wajahayo maritaanka wadada adag laakiin dhamaadkii waxa u suurta gashay inuu ka gudbo wadadii xirfad aad u sareysa waxa darawalkan waxa ciirinay gaariga booliska waxaana si laba filaan ku arkay meel ka banaan baakinka gawaarida waxaana uu si dhaqso leh ku galiyay baakinkii banaanaa gawaarida halkaas uu ku qiyaamay booliska ciirinay darawalkan waa mid ka mid ah kuwa wada baabuurta waaweyn ee xambuulka ah ayaa si xirfadaysan gadaal u gelinaya meesha lagu talagalay alaabta xamuulka ee lagu xareeyo darawalkan oo lagu magacaabo Misikro Marka ayaa waxa uu jibiyay iskoorka waditaanka gaariga in lagu wado hal dhinac xawaare sareeya oo gaaraya 185,840 mayl saacadii baskan oo ah nooca dalxiiska ayaa waxa uu ka hor yimid caqabad ah dhanka wadada ah oo maritaanka god ciriiriya balciisa uu gaaray 244 sentimitir waxaana uu mariyay asagoo bad qaba dhalaantii waa darawal xirfadiisa aad u sarreeya wadada Shishwar waa mid ka mid ah wadooyinka ugu khatarta badan ee caalamka balacaana waxa mari kara hal gaari haddii ay iska hor yimaadaan laba gaari mid ka mid ah waa inuu dib u laabtaa dhowr mitir si ay isku dhaafaan wadadan waxa ka dhaca shilal ayaa ka dhaca sanad walba waxaana looga baahan yahay darwalka baabuurka ku wadaya inuu yahay darwal aad xirfadiisa u badan tahay maadaama ay tahay meesha ayna tahay wadadu mid cariiriya meesha lagu wadayna meel khatar ay tahay waa inuu yahay darwalka baabuurka wadaya mid darwal xirfadiisa aad u sareyso darawalkan waxa uu sigay inuu baabuurka ka dhaco gabiga iyo dadka saaran markii taayirka dambe uu dhac ka baxay wadada laakiin waxa u suurta gashay markuu uu kor u qaaday xawaaraha gaariga waxaana uuna soo celiyay isku dheelitirkii gaariga waxaana u suurta gashay inuu badbaadiyo gaariga iyo dadkii saarnaa halkan ayuu ka eegay fiidiyoga maanta waad ku mahadsantahay daawashadaada fadlan fiidiyoga like saar nagu soo bir hadaan nagu cusub tahay intaan ku kulmi doono fiidiyoga xiiso sidaas iyo